بتولدا هدي أهل حالين حولح إن عقول بعدو يدا لو دير دوكا أنا يريدا أنا يريدا أنا عادي يري إلى علين هوديو عقار طاقضي أنا يريدا أنا يريدا كودك فينا عاد كوريا يحوم شقيا بدي كودك فينا في حاج لكوريا انتباه حنون قضاء مويه المساحة بالقليل منقال حيو طاميقة حلا انتي حرون مقالة انتي طاميقة حلا حنون قضاء مويه المساحة بالقليل منقال بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسر داوديال waxaa ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo muddooyinkii u dambeeyay gobolada dalka ka waday daaweynta xoolaha daaweyntan ayaa wasaaraddu waxay ka bilowday gobolada bariga iyo sidoo kale kuwa galbeedkaba iyadoo looga goleeyay sidii loo daweyn lahaa xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna ay xoolo noqon lahaayeen qaar caafimaad qaba waxaanu ku sugannahay deegaanka Tuur Qaylo oo kamid ah gobolka Awdal isla markaasna waxa ay indhihiinu qabanayaan xoolaha tirada badan ee ku sugan goobtan isla markaasna loo keenay sidii loo daweyn lahaa goobtan ayaa waxa ku sugan sidoo kale kooxaha caafimaadka ee daweynaya xoolaha waxaynu ugu horeyn aynu eegi doonaa isla markaasna warbixin inaga siin doona goobtan iyo sidoo kale sida hawsho ay uga socoto deegaanada gobolkan Awdal isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Awdal daahir isuduwe bal waxaad ka warantaa hawsha daweynta xoolaha gobolkan Awdal sida u socoto iyo muddada ay socotayba bismillaahir rahmaanir rahiim indhiinaad ku arkaysiin xoolaha dawadu sida u socoto iyo dhaqaatiirta xoolaha daweynaya heeganka ilaa hadda waxa ku jira 6 kooxood ayaa ku jira gobolka sida ay si ka daran bayna u soo socotaa muddo ilaa 25 maalmood ay socotay ilaa iyo hadda waxay daweeyeen markaan si soo geeyay kooxaha 6 ka kooban 225 oo neef oo ariya 45 oo neef oo lo ah marka hawshana waa arkin indhihiina sida u socoto ayay sidaas u socotaa hawsha si fiican bayna u socotaa indhihiina waad ku arkaysaa waa tahay marka goormay soo gabagaboomaysaa hawshan talaalka ama daweynta ka socota gobolka Awdal xilli ku waxay ku egtahay adigu bisha soo socota hadii ilaahay idmo bulshada ku dhaqan deegaanadan gobolka Awdal maadaama ay sidii wasaaradda xanaanada xoolaha fariin nooceed u dirlay fariintaan u diray dadku waxa weeye iyadoon horena warqad ugu dirnay gobolada iyo degmooyinka aanu dirnay iyo tuulooyinka inay ka faa'iideystaan fursadaasi maadaama dawadaasi oo dawo bilaash dawo tayada marka mashruucan waxa iska kaashanayay sida tuu socotiin wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda FAO qaar kamid ah dadka deegaankan aanu ku sugannahay ee kamid ah gobolka Awdal ayaanu jecelnahay bal inaan weydiino siyaabaha kala duwan ee kooxan caafimaadka ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ugu daweeyeen xoolahooda hooyo magaca waxa la yiraahdaa Qasmaan Idris deeqa Cismaan Idris ma lagu daweeyay xoolaha oo kooxan caafimaadka wasaaradda xanaanada xooluhu ma daweeyeen xoolahaaga dhowr sano waynu u daweeyeen saakadan haddaan aan joogno saacadan imika aynu joognaaba kamid ah
waxaas markaas aad bay ugu mahadsan yihiin iyaga iyo cidii qaban qaabisay ee ka dambeysay arrimahaasba aad ayay ugu mahadsan yihiin maxay ahayd anagu waan ugu mahad celinaynaa waxa ay noo qabteen tabaruca ay noo galeen marka xoolaha lagu daweeyay ma adhiba ma geelba ma loba mise way isku jiraan wixii aan haysanaba adhi iyo lo iyo geelninba wuxuu haystaba waa loo daaweeyey waa loo turqay yaad u mahadnaqi lahayd waxaan u mahadnaqlayn wasaaradda xanaanada xoolaha iyo cidii ka dambeysay ee qaban qaabisayba waan u mahadnaqaynaa weli waxaynu joognaa deegaankan tuur qaylo ee ka mid ah gobolka Awdal waxa arkaysaan xoolo kala duwan oo halkan lagu daweynayo waa xoolihii la daweeyay isla markaasna ka soo baxay darka dawada waxay isugu jiraan ido iyo riyo markaasi waxa ay ka faa'iideysteen dawada bilaashka ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka wado deegaanadan iyaga oo dadka deegaankuna si weyn u soo dhaweeyay isla markaasina ugu riyaaqay waa xoolihii oo la daweeyay إذا حابت لنا هدي أهل حالين عقوى البعد يدا لو دير دوكا maadaama tahay hogaamiye kooxdan ee caafimaadka tireentay leeg bad daweysay ma oran karnaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan daweynay xoolo dhan intaan shaqayn 5 maanta waxaan daweynay ari totalka guud wuxuu noqonayaa 33500 tiimkayga ahaan oo ah Awdal 03 waa tiimka saddexaad ee Awdal ee ku qoran inay degmada Boorama iyo Sallid xoolaha la daweeyay maalada u badan mise geela mise ariga muhiimada boqolkiiba 60 waxa weeye waa ariga la daweynaya boqolkiiba 30 waa loo boqolkiiba 20 waa geel عقار داقضي أنا يريده واقع بريسامو إبر واقعت إبن لودعه برعالله الليو بريسوق ماي واقع بريسامو إبر واقعت waa deegaanka Camuud oo kamida gobolka Awdal isla markaasina waa deegaankii saddexaad ee aanu waana deegaankii labaad ee aanu kula kulanno kooxaha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay u dirtay gobolka Awdal deegaankan sida arkaysaan waxa ku sugan xoolo tiro badan oo markaasi halkan u jooga sidii loo daweyn lahaa waxaana hawshan gacanta ku haya oo fulinaya kooxaha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland arigan waxa uu diyaar u yahay isla markaasina goobtan xirada loo keenay sidii ay u daweyn lahaayeen kooxda dhaqaatiirta caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan wareysan doonaa kooxaha halkan hawsha ka wada daweynta deegaankan Camuud ee ka tirsan gobolka Awdal waxaana inooga warrami doonaa sida hawshan u socoto iyo sidoo kale tirada xoolaad ee ay ka daweeyeen deegaanadan waa kuwan iyagoo amurahaasi ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa weeyaan Cumar Cabdullaahi Maxamed Dalal waxaan ahay team leaderka team leaderka haysta teamkana darkiisina hawshan sida habsamada loo socota saydkana joognaana waxa weeyaan Camuud oo ka tirsan gobolka Awdal dadka waxyaabahan imigan ahnuun wadna dawooyinkan waxa weeyaan xanaanada xoolaha marka dadku si fiican bay uga faa'iideysan wayna ku baraarugsan meelaha qaar waxa laga yaabaa dadku inay ku baraarugsan laakiin imika goobahan joogno kale dadku aad bay ugu baraarugsan yihiin wayna ku soo dhaweynayaan xoolihii markaas soo timaadeen kuwa horay markaas ugu bilowdid kuwii kale oo dhan baa la joojinaya la suuqa joojinaya kadib markaas habsamilaya shaqadu noogu socotaa waxa caqabadoon aragnay ilaa wali la'aanka ma jirto aad bay dadka deegaanka noo soo dhameeyaan sidee ayaa uga faa'iideysanteen daweyntan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay idinku keentay deegaankiini magacaygu waa Yuusuf Igeebre oo degan magaalada Camuud ee dunsanay dirbiga Camuud anaga shalay toole ayaa naloo daweeyay xoolaha iyaga ari iyo geelba wixii kulli toole aan keensanay ama looba si fiican ba kulli naloogu daweeyay waxaan u qabnaa kulli toole inaan maaragtaa hay nimankani iminka doorka nala jooga qoladii hore noo iman jirtay aad uga yar horeeyaan uga yar diiran yihiin ya sida ama u shaqeynayaan ama wax qabadkoodu yahay ama ay dadka u soo wacyigelinayaan ay ugu yeerayaan marka waxa weeyaan kulli aad baan u taageersanahay doorkan imika sida aan ugu dadaalayna hadii aanu nahay deegaanka reer Camuud ama oo wasaaraddaas u sabtarayso shalay waxa naga rawaxin kowdiyo oo wax yar la waa tahay sideeba uga faa'iideysteen marka xoolaynta leeg bas adiga lagu daweeyay waxa la daweeyay ari iyo geel iyo looba la daweeyay marka ka rajaynaysa marka xoolihii la daweeyay
maxaad ka filaysaa كل واحد كفيل يعني عديت في أنا ما عد في أنا قالوا كهلا ده أما أنا في عم بان كهلون كل طوله سيدي لا يقول ترى قليل وناكسنا نقدان أيان كفيل يا dadka deegaanku ma ku baraarugsan yihiin daweynta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay wado oo ma ka faa'iideysay aad buu faraxsan aad buu faraxsan yaadu mahadnaq lahayd waxaanu mahadnaqaynaa wasaaradda kulli toole hawsha noo soo habgelisay ee noo keentay ee xanaanada xoolaha iyo kulli u mahadnaqi lahayn gaar ahaan dawladdeeda ayaan mahadnaqa siin lahayn deegaankani waa deegaankii saddexaad ee aanu kula kulanno kooxaha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland deegaanka waxa la dhahaa Mataan waxaanu ka tirsan yahay oo hoos yimaada degmada Gabiley ee gobolka Maroodijeex halkan waxa ku sugan geel tiro badan oo markaasi goobtan loo keenay sidii loo daweyn lahaa waxa kale oo madasha ku sugan kooxaha daweynaya xoolahan team leaderka ama hogaamiyaha kooxda ma jecelnahay inaanu weydiino intii xoolaad ay ka daweeyeen deegaanadan iyo sidoo kale sida dadka deegaanku ay soo dhaweynayaan daweyntan bilaashka ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay u keentay dadka deegaankan isla markaasna ay u keentay goobtooda bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Dr. Yaasin Ismaan Saciid waxaan ka tirsanay wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan shaqeynay imika waa wiigii afraad baan noo socda waxaana weeye teamkii Maroodijeex 01 baa la lambarkiisa ilaa hadda waxaanu ka shaqeynay arigaaliya ka tuqno neef waxaan kale oo ka shaqeynay looda 9800 geel waxaan ilaa hadda ka shaqeynay 6300 iyo 7 neef waana mashruuc weyn oo naga caawinaysa hay'adda cuntada iyo beeraha ee FAO loo yaqaano dadka deegaanku sidee uga faa'iideysteen hawshan marka daaweynta wallahi daaweyntan iyadoo bilaash dadka deegaanku aad bay uga arbixin saaka waxaan halkan ka bilownay shaqada 5 barkii ilaa haddana waan wadnaa waana sii wadeynaa waan dhamaystirnaa insha Allah bidmilaahi karimta ka gaari karno nirgahani waa qaar kamid ah geela ku sugan deegaanka bal deegaanka Mataan oo kamid ah degmada Gabiley gaar ahaan hoos yimaada tuulada Kalabaydh waxaanu goobtan u joogaa sidii kooxaha caafimaadka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay u daweyn lahaayeen waa geela arkaysaan oo markaas kooxaha xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka daweeyeen furuuruca iyo sidoo kale caalkaba nirgahana sida arkaysaan waxa ka muuqda afdalow ama furuuruc marka ujeedada laga leeyahay daaweyntan ayaa sidii guud ahaan xoolaha Soomaaliland hadii geel adhi iyo lo ay yihiinba ay noqon lahaayeen qaar caafimaad qaba waa deegaankii afraad ee kamid ah deegaanada galbeedka Soomaaliland ee ka socota hawsha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland muddooyinkii u dambeeyay ay ka waday dalka waxaanu joognaa deegaanka Qalax oo kamid ah degmada Gabiley isla markaasina ah deegaan caan ah waxa halkan ka socota hawsha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee degmada Gabiley ee kamid ah gobolka Maroodijeex ayaanu jecelnahay in warbixin guud naga siisay hawshan socoto iyo sidoo kale daaweynta xoolaha waana tiinkii labaad ee ka howlgala deegaanadan magacaygu waxa Maxamed Cali Xurun waxa weeyaan waxaan ku jiraa wiigii afraad ee daaweynta xoolaha kulka waxa weeyaan maanta halkan waan joognaa waxa la yiraahdaa Qarax Sharif Cali baa la yiraahdaa meesha buurtan Sharif Cali baa loogu magac daray kulka xooluhu waxa weeyaan waqti saaka aroortii yaan bilownay ilaa lixdii waan joognay halkan kulka ilaa xoolo badan baa la keenay waxaanan siinay moogtay dawadii caalka fitamiino iyo wixii xooluhu u baahan yihiin intaan eegno ayaan siinay moogtay inta way gaafraad in maanta joogno ariga iyo riyihii idaa kulka la isu geeyay waxa weeyaan ilaa 40,000 neef ayaa soo daweynay looda halkan waxa weeyaan Gabiley waa galbeed waxay ku caan tahay loodana waxaan marnaa 8,000 iyo xogaa geelana waxaan ku marnaa 5,000 ilaa iyo 200 kulka xoolo tirada guud waxa weeyaan waa inta bismillaahi rahmaanir rahiim magacaygu waa Sayid Cabdi Jibriil Bahdoon anigoo u mahadnaqayo wasaaradda caafimaadka xanaanada xoolaha oo noogu timiday degmada Qarax way noo daweeyeen waan u mahadnaqaynaa insha Allah ta'ala sidee uga faa'iideysateen
si fiican baan uga faa'iidaysanay way noo daweeyeen markaa waanu mahadnaqaynaa marka xoolo maxaa laydin daweeyey ma geel ma adhi mise lo adhi iyo geel bay noo daweeyeen hay sidaa u aragtaa markaa haddii xoolihii laydin daweeyey in ay isbeddel xooluhu ay ku keenayaan dawadaa la siiyey ma isleedahay waxbaa ugu soo kordhaya insha allahu tacaala si fiican baanu waayidsanaa inay isbeddel ay u keento weli daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkan aynu ugu korgelayno habka iyo hanaanka ay uga socoto gobolada dalka jamhuuriyadda somalilan hawsha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ay ka wado gobolada dalka waxaynu ku sugannahay gobolka saaxil deegaan ka mida oo la yidhaahdo ragaadweyn waa salaad hore waxaanu halkan kula kulannay kooxda ku qoran deegaankan ragaadweyn deegaanka bullaxaar ayay ka tirsantahay goobtan aynu joognaa ee ragaadweyn halkan waxaa hawsha daweynta ka wada kooxda wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ee wasaaraddu eegimatay inay hawshan ka fuliso deegaanadan farxaan waa hogaamiyaha kooxdan ama team leaderka tiimkan farxaan deegaanadan aynu ku sugannahay sidee ayay uga socotaa hawsha daweynta xooluhu imisa neef ama xoolaad ayaad ka daweyseen dadka deegaanadan oo aad u daweyseen kooxdeedan magaceedu waxa weeyaan kooxda tiimka koowaad goobtan ka howlgelaynaana waxa weeyaan degmada bullaxaar marka waxaan bilownay hawshan bishii rabadaan kowdeedii alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaa noo suurto gashay in taargetkii iyo yoolkaygii aan doonayna treatmentiga inaan xoolaha daweyno inaan gaadhno si fiican natiijadeeduna waxay kala tahay 4 wiigaan soo shaqaynaynay adhiga waxay gaaraysaa 6,943 ayaan daweynay looda iyaga waxaan daweynay 9,455 geelina waxaan daweynay 3,730 waa maasha Allah taa hawshaasna waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxda iyo howlwadeennada wasaaradda xanaanada xoolaha iyo tiimkayga oo si fiican u wada shaqeynay iyo deegaanka oo iyaguna saas inala caawiyay hawsha naga caawiyay waxaanu ku sugannahay xeradan oo markaasi ay ku jiraan xoolo loogu talagalay in ay daweeyaan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland kooxaha ka socda ninkan aad arkaysaan waxa uu leeyahay ariga halkan ku xareysan bal ka waran kooxan caafimaad ee kugu yimi xeradaadii iyo deegaanka deganeed ee ku daweynaya xoolaha arigaagi ma lagu daweeyay wali daweey ariga si fiican ba lagu daweeyay dawana la daweynaya si fiican baa loo daweynaya maxaad ka rajaynaysaa dawada marka ariga la daweeyo ariga dhinacaadka caanaha iyo caafimaadkiisa maxaad filaysaa tiya fiican yeesha ma filaya si fiican tiya fiican yeesha waxaan ku sugannahay mid ka mid ah deegaanada hoos yimaada gobolkan saaxil isla markaasina waxaan u koorgalnay hanaanka kala duwan ee ay u socoto hawsha daweynta xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana halkan ku sugan kooxaha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxaana ka warbixin doonaan sida ay u socoto hawshan magacaygu waa Nuurudiin Aadan Maxamed waxaan ka tirsanahay gobolka saaxil gaar ahaan degmada Mandheera tiimkaygu waa 04 waxaanu shaqadan bilownay aanu wadnay muddo 4 wiiga 3 wiiga ugu horeeyay riboodkii aanu daweynay riyaayaydaha waxay 4,632 halka ay looduna ahayd 10,730 halka aanu geelina daweynay 7,244 total ahaan markaan isu geeyno xoolahan daweynay waa 7,610 neef warbixinahan iyo waraysiyadan aad daawanaysaan waa qaybta hore ee barnaamijka aynu ku eegayno habka iyo hanaanka ay u daweynayaan kooxaha caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ka socda ee loogu talagalay inay daweeyaan xoolaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waraysiyadana iyo sidoo kale warbixinahan aan idin soo gudbinayna waxaanu ka diyaarinay gobolada Awdal Gabiley iyo Saaxil waxaanu ku cid doonaa daawadayaal gobolada bari ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Gracias.
waxaan loo qabto maanta noogu horeysa anag waxaan loo qabto waxaan ku sugannahay deegaanka Balehadhac oo ka mid ah gobolka Sool gaar ahaan dhinaca koonfureed waa goobtii koobaad ee aan kula kulanno kooxaha daweynta ee ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland isla markaasina daweynaya xoolaha ku dhaqan gobolka Sool waana tiimka halkan u jooga daweynta xoolaha Maxamed Saciid oo ah hogaamiyaha kooxdan daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha ee deegaankan gobolka Sool ayaan jecelahay inaanu weydiino inta xoolo ay daweeyeen markaasi degan ama se ku dhaqan deegaanadan iyo sidoo kale meelihii ay ka sameeyeen howlgalka caafimaadinta xoolaha ee laga socdo gobolka Sool. bismillaahir rahmaanir rahiim si habsame leh oo aad u qurux badan ayay noogu socotaa tirada xoolaha guud aanu daweynay waa 56550 oo ari ah lo ah 5796 12,000 oo lo ah 133 geel ah ayaanu maraynaa waa average u dhigma in boqolkiiba 95 in aanu marayno intii la rabay average la rabay inaanu soo buuxino coverage ay buuxino runtii halkan xariyahan aanu imika la joogno waa dadkii Soomaaliya ka soo guuray dhanka gobolada dhexe ee Soomaaliya oo inuu ku yimi halakan dhibaatada ka jirta oo kaliya nagala kulantay waxa weeyaan de coverage xoolihii aan imika markii hore aan filaynay in aynu daweyno in ay ka badan yihiin xoolaha darnoo imanaya de wadarkaasana xerada ugu yar ayaa 500 oo neef ah walaalayaal waad mahadsantihiin qolada xanaanada xoolaha oo noo yimid waana hagaajiseen waana noo xoolihiina waa daaweyseen waa goobtii labaad ee aan kula kulanno kooxaha caafimaadka ee ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee daweynta u jooga gobolada bari deegaankan aan ku sugannahay waa deegaanka Gowsa Weyne oo ka tirsan degmada Garadag ee gobolka Sanaag halkan waxaan kula kulannay kooxaha ku qoran gobolkan ee ka daweynaya xoolaha ku nool deegaanadan deegaankan oo ah deegaan ay ku nool yihiin xoolo tiro badan inkasta oo abaartii dalka ka dhacday ay saameyn ballaaran ku yeelatay Yaasiin oo ah hogaamiyaha kooxdan ku qoran gobolka Sanaag ayaanu jecelnahay inuu faahfaahin dheeraad ah naga siiyo intii xoolo ay ka daweeyeen gobolka Sanaag iyo sidoo kale intay isugu jiraan ari geel iyo loba alxamdulillah waa la jaan qaaday wasaaradda iyadoo ku mahadsan oo wasiirku hogaaminayo xanaanada xoolaha madaxda kale agaasimayaasha iyo dhaqaatiirta haweenka iyo ka jawaabaya baahida dadkooda ay u qabaan iyo xoolahooda u qabaan inay helaan dawo tayo leh oo sugan guud ahaan haddaan soo koobo xoolaha aan ka shaqaynay muddada aan hawsha wadnay marka ariga laga hadlo 56290 ariga oo isugu jira ido yariyo geela 8310 baanu ka daweynay looda waxaanu ka daweynay 12480 maxaad waalay ilaahay anagoo ah Cabdullaahi Ciise Maxamuud hayrka magaalada Gowsa Weyne dadka deegaanku sidee uga faa'iideysteen hawshan oo xoolaha loogu daweeyay waxay uga faa'iideysteen si wanaagsan markii abaartu joogtana way ka daaweysteen haddii rabadaantana way ka daaweysteen maanta aanu joognana way ka daaweysteen saasaan kaga warhayaa oo kaga warbixinaya
daawadayaal waxaanu ku sugannahay ceelka caanka ee la yiraahdo ceel dhaab oo markaasi ka mid ah gobolka Saraar ee Caynaba halkan waxa isugu yimaada xoolo tiro badan oo markaasi loo soo waraab keeno halkan sidii uga cabi lahaayeen geela arkaysaan waxa ka mid yahay geela u yimi goobtan sidii ay uga cabi lahaayeen isla markaasina waxa geelan iyo sidoo kale xoolaha halkan ku dhaqanba ay daweeyay kooxaha ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee kooxaha dhaqaatiirta muddooyinka u dambeeyay gobolada dalka ka waday daweynta hawsha waxaanaanu kulanay deegaankan ama ceelkan ceel dhaab iyagoo markaasi kooxaha caafimaadkuna ay hawshoodii shaqo ay ka wadaan deegaankan alxamdulillaah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa mursaliin anigoo magacaygu yahay Dr. Ibrahim Axmed Salaaban أنا إسكتوا قول كان صراحة حنا حولها تيم كان عن كل شغليني المدة دايما بدن بان كل شغليني هيكل متاعي ومجو علاب نحبر هالشيء سدحكيد مش أو حولها نمبر كاين كانوا داويني ترجود حاجة أرجع يريا مركز كشران أفريق كن يوحنا مرنا تطبيق كنت نف جيرة 9663 لودا 6377 وانا نمبر سكو سي بدنيا oo si soconay maanta kuma jiro weegaga soo socdana waxa la rajaynaynaa in number badan aan helo iyadana xoolo badan reeyno daawadayaal sida arkaysaan halkan kooxaha dhaqaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee muddooyinka u dambeeyay hawlgalka caafimaad ee caafimaadinta xoolaha ka waday gobolada dalka imikana waxa la mariyay dawadaasi arkaysaan daawadayaal oo markaasi ka kaxayn doonta xanuunkaasi kaga dhacay xubinta taranka ciisalka markaasi kooxaha dhaqaatiirta caafimaadka ayaa hawshaasi si fiican u gutay oo wankaasi daweeyay runtii keeska waxaan ka qabanaynaa waxa weeyaan jabti kaga dhacday xubinta taranka runtii sidoo kale markuu neefku noqdana waxay noqonaysaa in marka hore la nadiifiyo kadib marka la nadiifiyo jeermiska iyo waxyaabaha saaran oo dhan laga biyana kadib kaadida laga sii daayo runtii kaadida laga sii daayo noqonaysaa kadibna dabeetana marka kaadida laga sii daayana wound spray lagu buufiyo nabarkan kadibna oo soo antibiyootig oo qalajisa meesha la siiyo insha Allah saas ku bogsanaya waxa sababa markaas inuu waxyaabo kale oo fara badan oo kala duwan baa sababay kan runtii waxa sababay dhir u daaqayda sababtay daaq waa sababay kan saasaanu kaga ladnaan doonaa insha Allah waxaanu gaadhnay deegaanka Aroori oo kamid ah gobolka Togdheer halkan ka wada soconaana daawadayaal waa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan barnaamijka aan ugu korgalayno kooxaha dhaqaatiirta ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ka socda ee fulinaya hawsha daweynta ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda FAO ay u eegmadeen in ay ka fuliyaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland deegaankani waa Aroori oo saan hore soo sheegay ka tirsan gobolka Togdheer isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Togdheer Dr. Cabdi Muuse iyo kooxaha dhaqaatiirta ee ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha ayaanu deegaanka kula kulanayo ka wada hawsha daweynta xoolaha ku dhaqan deegaanadan kooxdan ka socota wasaaradda xanaanada xooluhuna waa koox kamid ah kooxaha ku qoran gobolka Togdheer ee daweynta ka wada deegaanadan Dr. Cabdi Muuse isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ayaanu jecelnahay ugu horeyn inuu ka warbixiyo inta team ama se kooxood oo ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha fulinaya hawshan ka hawlgala gobolka Togdheer iyo sidoo kale xoolihii ay daweeyeenba bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma ista'aan wa binna nasta'in ala muridin ya wadin runtii aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaad nagu soo booqataan annagoo ku jirna hawl maalmeedkaygii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland loo igmaday oo fulinayna daaweyntii tiimamkii oo aad aragtaan nimanka dhaqaatiirta ku hawl jira runtii gobolkan waxaa ka hawlgalay 6 tiim oo daaweynta xoolaha ah
runtii daaweynta waxaa muddadaa ay ku jireen 6 tiim gobolkan togdheer waxay daaweeyeen xoolo dhan 950,000 oo neef oo isugu jira xoolaha la dhaqdo ee kala duwan geel ari lo waxa ay ku jiraan iminka gabagabadii waqtigii ugu dambeeyay wiigii shanaad ayay ku jiraan week 5 runtii wax yar muddo yar baa hadhay muddadaasi waxay qabteen hawl aad iyo aad u ballaaran oo deegaamo kala duwan runtii hawl ballaaran bay qabteen waa dhakhaatiirta aragtaan u heeganka sidii ay u caafimaadin lahaayeen xoolaha dadkeena xoolo dhaqatada ah waxaana niman mutadawiciin ah una soo diyaar garoobay runtii sidii ay dee xoolaheena standard wanaagsan oo caafimaad ay u gaadhsiin lahaayeen aad iyo aadna waan ugu bogaadinayaa hawsha qaranka ay u hayeen halkan waxa weeyaan degmada Kabadheere Aroori ee gobolka Togdheer haddii ay tahay halkan waxaa jooga xanaanadii xoolaha ayaa joogta xoolihii bay daweynaysaa ay ku wadaa dawadii duniduna waa iska yaro wacan tahay dadasa xoolahaagii adiga ma lagu daweeyey aniga xoolahaygii waa la daweeyey kuwii dadka waa la soo daweeyey intaynaan daawadayaal aynaan gabagabayn barnaamijkan ku saabsan oo korgalka habka iyo hanaanka ay kooxaha dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay ka wadaan gobolada dalka ee ku saabsan daweynta xoolaha ariga daawadayaal idin muuqda waa gaariga noo sahlay inaanu marno 6 gobol ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina waa gaarigan wadanay oo markaasi aanu meelo badan aanu ku tagnay si aanu u gaadhno siyaabaha kala duwan ee kooxaha dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay u fulinayaan hawsha caafimaadinta xoolaha Cabdilaahi Muuse waa darawalka gaarigan isla markaasina in muddo oo ku dhow 4 sano iyo dheeraad waday gaarigan waxaanu ka tirsan yahay darawalinta wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland qaybta farsamada Cabdi ayaan jecelahay bal ugu horeyn inaan weydiiyo goortii uu dhiibay iyo siyaabaha kala duwan ee uu daryeelo maadaama uu gaarigaasi uu waday muddo 4 sano gaariga waxa waday muddo 4 sano iyo samtiya intaana fiil iyo shaqo ku jiray qof kastaaba wuxuu gacanta ku hayo ayuunbu daryeela safarkii aynu ugu kuur galnay kooxaha dhakhaatiirta ee wasaaradda xanaanada xoolaha aynu ku soo gaala bixinay 6 gobol ee waaweyn isla markaasina deegaano kala duwan iyo xoolo kala duwan aynu ugu tagnay bal ka waran safarkaasi والله سفر wanaagsan buu ahaa 6 gobol baan soo marnay ina ka ku galayna xoolo iyo tiimam ka soo shaqeynayeen 6 gobolna soo marnay Dr. Maxamuud Axmed Cumar isagana waxaanu aanu ku wada jirnay socdaalkan aanu ku marnay gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku saabsan u kurgelida kooxaha ka socda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ee ay hay'adda FAO iyo wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ay u direen sidii ay soo daweyn lahayn xoolaha Dr. Maxamuud wuxuu isagu noo qaabilsanaa hagida iyo tilmaamida goobaha ay ku sugan yihiin xooluhu waxa weeyaan waxaanu marnay 6 gobol shaqada ka socota ee daaweynta xoolaha abaartii waxyeelaysay 6 gobol waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dhakhaatiirta ku kala sugan degmo iyo gobol kii aynu marnay mid aynaan marin oo si fiican noola shaqeeyay waxa weeyaan ballanka inoo ilaaliyay meesha ka shaqeynayaan inoo fududeeyay waa xusud mudan tahay talabaad waxa weeyaan hawl adag ay iyaguna hayaan inaguna aynu qabananay oo markii u horeysay la sameeyo barnaamij noocan oo kala oo loogu talagalay u kurgelida kaambeynada ka socda xoolaha ama talaal noqoto ama daaweyn waa markii koowaad waxaana u sababaan filayaa wasiirka xanaanada xoolaha hadda jooga Cabdilaahi Maxamed Daahir Xuseen oo runtii aad ugu mahadsan ujeedada laga leeyahay hadaba ololahan daaweyntu waxay ahayd xoolihii ka soo doogay runtii abaar adag baa dhacday xoolo badan baa dhintay xanuuno iyo gaajo abaar biyo yari iyo caws yari xoolihii ka soo doogay abaartaas in lagu fuliyo daaweyn xoolaha waxay isugu jiraan adhigii oo riyo iyo ida ah lo'da iyo geel tiradooda haddii la eego
idaha waxaa la daweynayay 1,125,000 riyahana tiro la eg 1,125,000 lo-da waxaa la daweynayay 450,000 geela waxaa la daweynayay 300,000 intaas oo gobolada si isla eg loogu qaybiyay ayay ka koobnayd xoolaha la daweynayay. waxaan doonayaa inaan maanta halkan uga mahad celiyo tiimamkii hawsha ballaaran ee waqtiga adag ku soo beegnayd u dhabar adeegay ee hawsha quruxda badan leh dalka soo qabtay tiimankaas oo dhammaa 35 tiim iyo 2 tiim oo kormeer ah oo kormeerayay hawlihii ay soo qabteen tiimamku iyo sidoo qabteen xaqiijinayna tiimamkaas sida u soo shaqeeyeen runtiina warbixin wanaagsan ka soo wada gudbiyay qolada warbaahinta laftiiduna markii ay kormeer ku martay tiimamka waxay ka soo gudbiyeen iyaguna wax qabadkoodii oo dhaba oo aan lahayn wax iska shimala awaal iyo iska sheegida tiimamka waxa leeyahay aad iyo aad ba u mahadsantihiin waa tiimamkii daaweynta xoolaha ee dalka oo dhan ka qayb galay marka waxaan leeyahay ilaahay baa idinka jasaaysiinaya waajibkiina waa gudateen marka anigu waa ka mas'uul ahaan agaasimaha waaxda caafimaadka mahadnaqaygii kelmadeedii mahadnaqay aan ku lahaa ayuun baan doonayaa inaan halkan uga gudbiyo tiimamka xooluhu waxa ay Somaliland ugu jiraan kaalin muhiim ah waa laf-dhabarta dhaqaalaha ee dalka sidaa awgeed waxa ay wasaaradani haysaa shaqo muhiim ah oo ah sababta loo abuuray oo ah xanaaneynta iyo daaweynta caafimaadinta xoolahaasi nool ee ay jamhuuriyaddu dhaqaale ahaan ku dhisan tahay wasaaradda xanaanada xooluhu waxa ay ku dadaashay oo ay guntiga u xidhatay inay daweyso xoolaha iyo inay xanaanayso labadaba inta awoodeedu tahay inkastoo dhaqaalaha dalku yar yahay haddana wasaaraddani waxa ay ku mititay oo ay xoogga saartaa in ay iyada oo adeegsanaysa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee wasaaradda ka hawlgala dalka oo dhan gaadhsiiso daawada loo baahan yahay ee neefka xoolaha uu ku badbaadi karayo maadaama xooluhu ay yihiin laf-dhabarta dhaqaalaha dalkana waa khasab oo waa daruuri oo waa lagama maarmaan inay wasaaraddu guntiga u xidhato oo ay hawshaas si buuxda uga soo baxdo waxaan uga mahadnaqaynaa hay'adda FAO oo iyaduna gacan ka geysatay waxaanu dirnay 300 oo dhaqtar iyo kalkaaliyayaal isugu jira oo gobolada dalka oo dhan ku baahay kuwaasi oo qaaday dawooyinkii loo baahnaa ee caafimaadinta iyo kuwii ka hortagga labadaba intaasi daawadayaal waxaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka gaarka ah ee ay ka daawanayseen telefishinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ku saabsanaa u kurgelidda habka iyo hanaanka kala duwan ee ay u socoto hawsha daweynta xoolaha dalka jamhuuriyadda Somaliland oo wasaaradda xanaanada xoolaha iyo hay'adda FAO ay ka wadeen guud ahaan dalka tanna waxa ay marag iyo markhaati u tahay sida ay hawshaasi uga socoto gobolada dalka idinkoo aanu idin soo gudbinay deegaano kala duwan iyo sidoo kale xoolo kala duwan oo lagu daweynayo dalka jamhuuriyadda Somaliland si xoolaha laf-dhabarta waa dhaqaalaha dalka jamhuuriyadda Somaliland ay u noqdaan qaar caafimaad qaba tay ahaan iyo tiro ahaanba dhinaca kamarada وعاول عبد كاهن يسوجيدينتي iyo tabintii aniga Xasan Maxamed Muuse waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بتولدا هدي أهل حالي حوله إن عقول بعد يدا لو دير دوكا حوله إن
بيدح نقنان حكوني إني حال فانو أدو حير حبيرا نقنان حكوني نقنان حكوني نقنان حكوني نقنان حكوني كودك كينا بحال الكوريا بحوم شقية لي بحرب علي لغن